runtii waa nasiib daro kulankaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka Soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas oo soo baxo waxaas la yaab leh maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood horena waan shiraynay waxaas caddaatay in qoraalka iyo video ay dawladdu sii deysay oo ah wax hore u diyaarsanaa marka waxaa cad dawladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu nala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd mas'uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta diilaan muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyay ee aad ka wada hadlayseen ee dawladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wada hadalladu ay socdeen waxa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay waxaa la isku khilaafsanaa ajandaha shirka iyo hanaanka shirka u soconay sidoo noqonayo waxaa nasiib darro ah in wada hadalkii oo socda uu ku soo gaboobay in madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajandayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan arrinta ajandaha ayaa la isku mari waayay maalmihii horena saas ahayd laakiin markaan soo kala tagayna waxaan ku soo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cid u baahan waliba isagu uu codsaday inuu la tashi soo samaynayo markaan xaafadihii nimid oo aan filaynay inuu la tashi aadayo oo wada hadalladu sii socon doonaana waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo hore laga sii daayay marka annagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii u baahnayd in la wada ogaado marka mas'uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidna lama wadaagto waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay ka soo qayb galaan midowga musharaxiinta xubno kamid ah sida xogo hoosana aanu ku helayno in la ballaariyo gogasha in aad rabteen ayaa la sheegaya marka ma kaasa kan la isku mari waayay runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay ka soo qayb galaan beesha caalamka ururada bulshada madaxda dawladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin samayso laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah oo kaliya kadibna ay ka hadlaan ajandayaasha shirka ee la soo jeediyay waxaa kamid dabcan shirka wuxuu ku salaysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed 17 September la gaaray isaga ayaa gundhig u ah waxaa kaloo jiray documenti ay ka soo shaqeeyeen dawladaha xubnaha ka iyo dawladda federaalka ah oo 16 February iyo 15 lagu qabtay Baydhabo oo isagana ah documenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ka soo jeediyeen xalal waxaa kaloo meesha yaalay 8 February mar haddii xilhayntii madaxweynuhu ay dhamaatay iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dawladdu sida ay doonaan kadibna iyadoo joogu degan yahay dadku isku calool fuyo yahay doorasho raali laga wada yahay la aado qof walba la yaqaan roolkiisa ama maaragtay mas'uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin yaa mas'uuliyadda amniga leh yaa mas'uuliyadda howlfudeynta leh dawladuhu xubnaha ka maxay yeelan doonaan inkastoo habraacyadii hore ay wax ku dhignaayeen laakiin maadaama xilligii madaxda
xilka haysta ay dhammaatay in la helo waa muhiim arrimahaas ay arrimaha taagan laakiin maba laysla gaarin in ajandihii la isku afkarto madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8 February wixii ka dambeeyay lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo wuxuu yahay anagu waa garan weynay laakiin haddana waxaan u furnaa albaab wada hadal iyo isqancin iyo in la turxaan bixiyo aragti kala duwanaanta hadday u baahan tahay la tashi sharcina sharciga loo noqdo hadday u baahan tahay la tashi siyaasadaha loo noqdo haddii ay u baahan tahay cid kale oo na kala qancisana in fursad loo helo laakiin in albaabka la soo xiro macnaheedu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed rajadoodii la soo laabay ulajeedooyin kale oo guracanna laga leeyahay numar waxaa jirta in beesha caalamka ay dadaal badan gelisay in kulankani uu noqdo mid miro dhal ah oo waxa shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ah doorasho heshiis lagu yahay ay ka soo baxdo sida beesha caalamka u aragtaa in kulankii ay intaasi waday uu guul daraystay mase is aragteen kadib markii warkaasi uu soo baxay wallahi wali lama aanan kulmin beesha caalamka laakiin intaan la kulmin intaan oo dhan way ogaayeen waxyaabaha la isku hayo way ogaayeen borsi habka maarta shirku u furmi lahaa way ka warqabeen waxa looga hadlay way ogaayeen hadda kulli iyada garwadeenka ahayd oo soo qaabisay inuu shirkan dhaco ti ajandaha aan uga heshiino kadibna waxa ay la socoto dabcan annagu mararka qaarkood waxaan ka codsanay in ay ka noqoto garantor laakiin waxay codsadeen in iyagu markhaantiyaalka noqdaan witness si kastaba ha ahaatee annagu waxaan rabnay wax aanan mugdi ku jirin oo miiska dushiisa yaalla madaxweynahana waxaa lagu kari waayey wax lala og yahay in ay noqdaan marka waxa aan lala ogeyn sababta u doonaya waxa weeye markii aan ka soo tagno annagu iyo joogno oo nool magaaladii la joogno inuu been naga sheego oo ay yiraahdaan iyagaa wax diiday oo runtii wixii lagu sifayn jiray Allah u naxariista dhaga badan oo shabaab ku sifayn jiray inuu nagu sifeeyo dhaho jid iyo jihadiid weeye hadda macnahaasi kolley waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed iyagaana markaanti ka noqon doona meesha dalka iyo dadku uu wado dadkuna waa u wada jeedaa shacabka Soomaaliyeedna mas'uuliyadoodu waa ay yaqaanaan iyo madaxdooduba waxaan u rajeynayaa dadka Soomaaliyeed ee caanadaatay dabada la qabtaayo dalkan inuusan meel xun aadin madaxweyne muddaxileedkii hay-adaha dawladda federaalka waa uu dhamaaday iyadoo aan wax xal laga gaarin nidaamka doorashada dadka Soomaaliyeed walwal badan ay qabaan in madaxdoodu ay go'aan gaari waayaan doorasho lagu heshiin waayo dalkuna meel aan wanaagsaneyn uu ku laabto maxaa rajo ah oo dadka ku dhageysanaya aad u haysaa wallahi madaxweynaha xilkiisu dhamaaday kursiga waa ku dhagan yahay oo in lagala hadlo ma rabiyo laakiin anaga xalka waxaan u aragnaa wada hadal in lagu dayo in loo aqla celiyo in sharciga la xasuusiyo in dalka inuu sharci ku yimid loo sheego sharcigana uu ilaaliyo intaas anigu arkaa waayo wada kale oo dadka Soomaaliyeed maanta u furan ma leh wada xoog ma furna wada qalalaas uma furna wada nabadgelyo darro uma furna maxaa yeelay dalkeedu waa dal jilicsan wadada u furan waxa weeye in la hadlo loo aqla celiyo cid kasto uu wax ka maqlayana ay waqti ku bixiso marka waan rajeynaynaa in ay caqliga wanaagsan iyo maskaxdu ay soo noqoto oo dalka taladiisa dadku ay u soo noqoto intaa waa rajaan ka qabnaa dhinacayna wax tanaasulo ma sameynaysa si loo gaaro in doorasho loo dhan yahay loo aado anagu tanaasulka bil halkaaba u fadhinaa diyaar baan u nahay tanaasul waxa la isku hayana waxa weeye wax shakhsiyadeena ku xiran oo aan ka tanaasuleyno hadda aan sheegno oo ma garanayno waxa aan rabnaa war wax credible ah oo ummadda Soomaaliyeed hadda u noqoto xujo sax ah oo qaanuuni ah oo dalkan dhismaayo wadadii uu ku dhismi lahaa aan isla afgarano way waxa laga hadlayo oo sharciga uu noqdo waxa dhexda u yaala dadka maxaa yeelay ummad walba meel degan shuruucda hogaamisa shuruucduna waad ogtahay oo de compromise mala shuruucda in la fuliyay leedahay marka waxaan rajeynaynaa wixii sharcigu qabo haddii annagu aan sharciga ku khaldanaayna in noola sheego la yiraahdo idinka waa halkaas ay u khaldantihiin haddii madaxweynuhu iyo cidda la talinaysana sharciga khaldan tahayna in loo sheego intaas baa muhiima madaxweyne marka madaxda maamulada kale ee dalka marka la fiiriyo hadda madaxweynihii ama dawladda federaalka dhinaceedii ayaa ku dhawaaqday in kulankaasi wax natiijo ah laga gaari waayo madaxdiina kale ee maamul gobolada shanta ah ma kulmi kartaan oo xal ma keeni kartaan waa kulmi
kulmaynaa waana kulmi doonaa madaxweynaha ruuxadiisa inaan la kulanno diyaar baan u nahay anaga maanta markaan kasoo tegayno wuxuu yidhi aan soo noqonno cid walba oo danta maslaxadda ku jirta Soomaaliya inaan la kulanno annaga sharti kuma xirno waa la fariisanaynaa miiska laakiin waxaan rabnaa in la wada hadlo oo waxa sharcigu yahay laga doodo laakiin inaan wada kulanno oo is aragno sharti kuma xirno cid walbana waan arkaynaa haddii Ilaahay idinka dhigo